kusoo dhawaada walaalayaal channelka Horgal Media. Insha Allah subscribe saar iyo like insha Allah. Waxaan channelka ku baranaynaa wax kala faa'iideysi, in wax la kala faa'iideysto, gaar ahaan afka Soomaaliga in wax la kala faa'iideysto. Soomaalidu waxay dhahdaa af Soomaaligu waa margi bay dhahaan. margi mid qanaan horta. qaybna waxay dhahaan af Soomaaligu waa cinjir. af Soomaaligu waa margi. af Soomaaligu waa margi oo marba dhinac ayuu u jiidmaa. Okay, af Soomaaligu waa margi waa margi. Horta margiga waxa la dhaho ma isla fahnay? Yaa yaqaan waxa la dhaho margi? Garanaysaa margi? Cinjir waxay gelaysaa meeshii cinjirka oo kale. Cinjirka hadda cinjir af Soomaali cinjir bay dhahaan dadku qaybna waxay dhahaan laastig maanta. Laakiin ninba dhinac buu ka yaqaanaa. Laakiin waxaa fiican ina erayada la isla wada fahmo. oo hadduu mid kani ku dhaho cinjir ama kani ku dhaho mataqaanaa qofkan kale uu ku dhaho eraygaas laastig marka ina fahantaa erayadaas. Laakiin markaad si gudaha loo sii galo intooda badani meelo kale luuqado kale dabada la galayaan. Soomaaliga wax uu ku yar yahay cinjir haddaan ma ogi inuu Soomaaliya inuu Carabiya baa laga yaabaa. Laastigna Ingiriis buu u dhow yahay inuu Ingiriisiyaan u malaynaya. Marka waxa weeyaan Soomaaliga ina dooda laga sameeyo oo la isla fahmo oo la isla barto oo qaybtaada ka taqaanay maana qaybta kale qofka kale suu u fahmo ayaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd. Marka insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan sidii mataqaanaa aan luuqadeena u horumarin lahayn ama aanan eray badan waxaa jira hadda canjeero oo kale. Canjeero dad waxay dhahaan canjeero waa af Xabashi. laxoox iyo kibis kibis iyo laxoox ayaa Soomaali ugu dhow. laakiin erayga canjeera waa af Xabashi weeyaan. canjeero bay Soomaali ugu dhawaaqdaa ama canjeero. laakiin erayga canjeero Soomaali ma laxoox ama kibis labadaas ayaa Soomaali ahaan ugu dhow oo Soomaali ahaan loo adeegsan karaa. laakiin erayga canjeero horta daaqada ka bixisay laanahu Soomaali ma aha. marka wuxuu doono Soomaali ahayna Soomaaliga in lagu soo dhex daro iska waxa weeyaan way iska dhib badan tahay. eray kale adoo haysta inaad eray kale isticmaashana waa laga fiican yahay. marka hadda roodhiga oo kale roodhi ay dadku u dhawaaqaan. qaybna waxay dhahaan rooti, qaybna waxay u yaqaanaan furin. roodhi, rooti, furin.
marka intaas day wax kala maqan yihiin hadda garanaya khubus bay Soomaalidu qada khubus Carabi weeyaan ma aha Soomaali ma aha ya furinna badan horta Djibouti baa laga adeegsaday Soomaalidu inta badan furinka aad furin uma adeegsato inuu yahay Faransiisna way dhici kartaa ereyga khubus khubus khubz khubz qormaysa khubus horta Soomaali ma baa khubus waa Carabi weeyaan roodi marka waxa weeyaan ereyada in la isla meel dhigo oo la isla fahmo ay fiican tahay oo wixii la garan waayana la isku sheego oo la iska caawiyo Soomaaliga hadda bisad ereyga bisad dad waxay u yaqaanaan bisad waxay u yaqaanaan basho waxay dhahaan basho bisad basho dad waxay u yaqaanaan yaan yuur dad waxay u yaqaanaan mukulaal horta ni af Soomaaligu waa af qani ah laakiin waxaa loo baahan yahay dadkii qori lahaa dadka mataqaanaa wax ka weydiin lahaa erey u aruurin lahaa hadda bisada kaliya hadda imsa magac bay waleedahay waa iska yar tahay luuqad intaas oo magac hal erey kaliya 1 2 3 4 waliba kuwa kale oon hadda mataqaanaa inay jiraan baa laga yaabaa laakiin anigu shakhsi intan ka aqaan bas bisad basho iyo yaanyuur iyo mukulaal intaas waa 4 erey 1 2 3 hadda rootiga waa 4 erey okay canjeerada waa 1 2 3 erey 1 2 3 canjeero iyadoo xabashi weeyaan laxoox iyo kibis marka ereyga ugu yar Soomaaliga ayaa 2 marka ugu yahay marka luqadan waxay u baahan tahay inaa wax maartay wax laga qabto oo dadku ay qoraan oo la isweydiiyo oo laga dhigo luqad horumarsan oo laga dhigo luqad adduunka la tartanto luqad cilmi luqad cilmiyeed laga dhigo aad bay istaahesha luqadan laakiin dadkeedii baa wali mataqaanaa ayaa u soo socda insha Allah waa dadaalayna marka waxa weeyaan insha Allah la kala faa'iideysto wixii aad idinkuna aad u taqaanaan ereyadaas ereyo kale oo ka badan haddaad haysaan insha Allah hoos ku soo qora. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.